السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن barnaamijyadii taariikhiga ahaa ayaan wadnaa ama aan marba gogoosir ka soo qaadanaynaa. Waqtigan maanta waxaan rabaa inaan geliyo wax yar oo ku saabsan waxbarashada deegaanka Soomaalida. Waqtigan xaadirka ah waxbarashada deegaanka Soomaalida aad bay u xun tahay, waan isku waafaqsan yahay oo maaha waxaan aniga gooni u sheegayo. Waa waxbarasho aan ognahay ciyaalkii high schoolka inay dhowrkii sane lasoo dhaafay boqolkiiba 97 ay ku dhaceen oo boqolkiiba 7 ay ku baasgareynayeen. dowlad deegaanku xalal badan bay isku dayday oo ay isla haysay xal loogu helo. ciyaalkii waxay u sameeyeen tutoring 3 bilood ka hor intuunan imtixaamada la gaarin. guddiyo ayay sameeyeen ilaa haddana resultigiisii waan ognahay. marka waraysigii aan ka qaaday admiraal maxamed cumar cismaan oo ahaa guddoomiyihii jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya oo dhammaadkii 90-meeyadii iyagoo safar ku jira ayaan marba qayb ka soo qaaday. marka waxyaabo badan baan ka wareysanay. dhaqaalahan ka wareystay, waxaan ka wareystay waxbarashada, waxaan ka wareysanay dagaalkay ku jiraan, international community-ga, waxaasoo dhan baan ka wada wareystay. laakiin tan waxbarashada ayaan rabaa inaan wax yar aan ka daawano, kadibna aan ka daba falanqeeyo oo haddii ilaahay yidhaahdo, taasoo ku saabsan mataqaanaa sida uu arko waxbarashada deegaanka. su-aasha marka weydiiyo waxa weeye populationkii deegaanku u batay. dad badan ayaa dhalinyaro badan ayaa jirtay. waxbarashada deegaanka waqtigii Haile Selassie ilaa iyo haddeerto maxaa isbedelay, maxaana jir waa maxayna polisiga dowladda Ethiopia. bal aan wax yar daawano kadibna gadaal baan ka falanqeyn doonaa. maxaa yeelay dad aqoon-yahana hadday halkaa ka soo baxaan ama aqoontu ay fido, waxaa weeye waxay dadkaasi u doodayaan xuquuqdooda inay helaan bay u doodayaan. lama rabo taas. dadka waxaa lagala dagaalamayaa aqoonta iyo waxbarashada. lama doonayo in la helo dad aqoon-yahano ah oo u dooda xuquuqdooda. taas wuxuu dood u leeyahay. wuxuuna yidhi waa siyaasad ama waa policy ama waxa weeye qorshe dowladeed oo u degan in lagu maamulo deegaanka Soomaalida. waa waqtigii Haile Selassie ilaa iyo hadda wuu sii wataa hadalkii. saas daraadeed waxbarasho ma jirto dalkaas. hadday jirtana waa galaasyo yaryar oo elementary oo magaalooyinka waaweyn qaarkood ka jira. waxbarasho ma jirto deegaanka Soomaalida. pointigan fiiriya, hadday jirtana waa kalaasyo yaryar oo meel qaar ka. waqtigan xaadirka ah doodaas way taagan tahay. waxbarasho deegaanka Soomaalida ma ka jirtaa? haddii aan la leeyahay waxa weeye waxbarasho deegaanka Soomaalida kama jirto. caddayntuna waa wasaaradda waxbarashada reportkeeda. caddayntuna waa wasaaradda waxbarashada federaalka reportkeeda oo ah 2 sano ama ugu dambeysay 97% inay ku dhaceen waxbarashadan inayna ka jirin deegaanka Soomaalida. 6 sano la soo dhaafay, 10 sano la soo dhaafay, 20 sano la soo dhaafay, 30 sano la soo dhaafay. hadalkii uu sii watay. su-aasha markaan weydiin waxa weeye qof wax bartay ma tegi karaa deegaanka Soomaalida? waxaana ma bari karaa? because waxaan codka ugu dul hadlayaa codka alla ciifa daad aawadeed wey. waxbarashada iskuulaad wadaad dugsi quraan dhigaya ama imaam masaajid joogo oo dadka masaajidka kutubaha ugu akrinaya awood uma leeyahay mataqaanaa uu halkaas wuxuu rabo uu ka sameeyo uu ka yani uu halkaa
arrintaas hadda uu sheegay guddoomiyaha waqtigaas uu sheegayay hadda uu iska yara bedeshay taas gaal dil gartiisa nasiib baa dhahay hadda dugsi quraankii culummadii hataa jaamacado ayaa laga samaynayaa laakiin mataqaanaa stiil waxbarashadii dadkeennu aad buu ugu liitaa kumana ficna haba yaraatee taasi weli way taaganta ilaa maalinka maanta waxaa ka mid ah ninkii odayga ahaa ina sheekh muumin oo iskuulaad samafala dhigahayay wuxuu ka mid ahaa dadkii la qabtay ee ilaa hadda lala yahay meel alla meelu ka dhacay 94 haddii qof la xiro dadkaas intaan aan kusoo gabagabeynayaa pointigu sameynaya waxa weeye dad badan oo isku dayay deegaanka soomaalida inay la shaqeeyaan waqtigaas xaadirka waxbarashada ka shaqeeyaan ayaanan helin chance ay kula shaqeeyaan waxna ku baraan dadkoodii marka muhiimaddu waxa weeye deegaanka dadka wax ma la bari karaa ha yaa bari karaa siyaasadda policy ama u diyaarsan oo jirta in dadkeennan lagu hormariyo waxbarashadooda ma jirta awaaga haddana ma jirtaa maxaase ka khaldan haddayna jirin oo waxyaabaha u baahan in aad loo falanqeeyo deegaanka soomaalida waqtigan xaadirka ah ma ka maqlaysid in laga hadlayo waxbarasho laakiin goorma waxbarashada laga hadli doonaa waa marka itixaamada 12aad la gelayo dhowr bilood ka hor ayaa la baanigarayn doonaa la qaylin doonaa dowladda la tusi doonaa waxay qabanayso oo la dhihi doonaa waa in waxbarashadii waa ciyaalka qalsan jaamacadii la ururdayaa kadibna markii taxaamka la galo si loo yiraahdo war wax walba annaka waan isku daynay waxaan qaban karnay waan qabannay laakiin dowladihii naga horreeyey ayaanan qabanin shaqadoodii taas waxbaa ka jira laakiin in aad 2 bilood ama 3 bilood ka hor aad carartid xal ma aha mar walba in la qiro oo la yiraahdo ciyaalkan kuma baasi karaan itixaamadan oo aan dib loo fiiriyo oo la weydiisto dowladda federaalka ah siyaabo kaleeto oo waxbarashada dadkan qalbigooda iyo loo dhisi lahaa waxaa jirta adult programyo badan waan ogaa qaar qaasiyan jaamacadda ay samayso laakiin in waxbarashadu ay gaarto ilamaa qofka baadiyaha jooga waa mas-uuliyad saaran dowladda deegaanka iyo dowladda federaalkaba waxaan tegey cumaan waxaan tegey meel magaalo la yidhaahdo baadiya waad google garayn kartaa reer baadiyahooda waxa weeye kor bay u qaadaan xoolaha waxaa lagu raacaa gawaari baa lagu raacaa internetka waxay haystaan internetka ugu fiican telefoonada way wada wataan biyo socdo meel walbay ka helayaan reer baadiyaha waa adduunka oo dhan haddaad ama maraykanka fiirisid ama canada fiirisid ama yurub fiirisid ama carabaha fiirisid waa sharafta ugu badan ee ay dad leeyihiin waddamada carabta cumaan ha noqoto mataqaanaa moroccan tegey sacuudiga giddigoo dadku waxay sameeyaan jimcaha maalinta jimcaha ama maalinta khamiista way ka wada baxaan dadka intooda badan waxay tagaan baadiyaha inta baabuurta la wada qaato ayaa teendooyin laga dhistaa oo reer baadiyihii business loo geeyaa oo laga caana maashaa oo wax walba la sameeyaa oo dhaqanka la bormoodgarayaa xoolo dhaqatada ah dowladuhuna ay wax siiyaan aniga waxaan ka wadaa macnaheedu waxbarashada ma aha keliyaat inay magaalada taalo waxbarashadu waa inay tagto qof walba waa inay u tagto internetka waa inuu qof walba u tago dowladnimadu macnaheedu waa taas weeye marka uu ka hadlayo admiraalku arrimaha ku saabsan waxbarashada markuu ka hadlayo isaga waxbarashadiisa
inuu ka soo tegay deegaanka wuxuu yidhahday 1957 baan ka soo tegay si aan waxbarasho u raadsado. marka barnaamijka gaaban 10 daqiiqo waa la gaaray, intaasaan ku joojinayaa ay ku saabsan waxbarashada. waa muhiim waxbarashadu, qof walba waxa weeye inuu ka suga ma aha dowlad. mataqaanaa waxaa jira xadiis dhahaya waxbarashada inaad waxbarashada raadsatay hadday noqoto xitaa ilaa inaad tagtid mataqaanaa China, waqtigaasoo China ee meel fog. marka dhalinyarada iyo dad shacabka Soomaaliya iyo maamulka iyo cid walba waxaan ku bogaadinayaa waxbarashada in loo kurgalo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.